Waa maxay runta ku saabsan go'itaanka internetka caalamka inta lagu guda jiro Oktoobar sanadkan 2023? Wararkan ayaa ku baahay baraha bulshada, iyagoo sheegaya in internetka adduunka gebi ahaanba go'i doono marka la gaaro 11-ka Oktoobar sanadkan 2023. Waxaa maalmahan sare u kacay baraha bulshada muran xooggan oo ka dhex jira horjoogayaal ka mid ah aaladani oo u dhexeeya xaqiijin iyo diidmo, iyadoo ay sabab u tahay duufaanta kulaylka ee qorraxda ka dhalata. Arrintan ayaa timid kadib markii NASA, oo ah hay'ad dowladeed oo Mareykan ah, taasi oo mas'uul ka ah sayniska iyo farsamada hawada la xiriira, ay ka digtay suurtagalnimada duufaanta qorraxda inta lagu guda jiro bisha Oktoobar isla sanadkan 23, taasi oo horseedi doonta daminta aaladda internetka caalamka sababo la xiriira saameynta dabaylaha cadceedda ee dhulka. Sidoo kale, cillado iyo dhibaatooyin dhammaan shaashadaha isgaarsiinta wireless-ka. Intaa waxaa u dheer, satellite-ka iyo shaashadaha korontada. Haddaba, waa maxay duufaanta qorraxda? Duufaanta qorraxdu waa qalqal ku yimaada goobta birlabka dhulka ee ka yimaada dhaqdhaqaaqa qorraxda. Waxay inta badan ka mid yihiin ololka cadceedda oo aad u daran iyo dillaaca birlabka dhulka. Haddaba, haddaan sida kale u dhigno habka ay u shaqeeyaan, marka ay qorraxda gaarto dhulka, waxay la falgalayaan birlabka dhulka, waxayna sababtaa isbeddelka iyo qaska loo yaqaano dabaylaha la xiriira dhulka ama dadka deggan. Waxay soo saari karaan balaayiin tan oo waxyeello koran ah. Korankaasi oo isha dulduleelaha qorraxda ka caawisa kulaylka inuu soo gaaro si saa'id ah birlabka dhulka. Kadib, waxay keeni karaan inay qaadaan ama ay ka suuliyaan goob dhan oo birlabeed ah oo qaboojisnaa isla markaana qulqulaya, kaasi oo u xoog badan sida xagga dambe ee dabaysha qorraxda kana xoog badan birlabka dhulka. Haddaba, maxaa dhacaya birlabku hadduu dhalaalo oo kulaylka ka xoog bata? Birlabku waxa uu shaqo qabtaa markii uu qabow yahay. Haddii ay isdhex galaan kulaylka, waxa uu qalloocin karaa birlabka dhulka. Markii ugu horreysay duufaanta qorraxda saameyn ku yeelatay. Saameynta duufaanta qorraxda sanadkii 1859 ku yeelatay dhulka. Sanadkii 1859, dhulku wuxuu goobjoog u ahaa dhacdo naadir ah oo caan ah oo cirbixiyaan ah, taasoo loo yaqaan dhacdadii Carrington. Duufaantan xoogga leh oo qorraxda ayaa sababtay saameyn ballaaran oo dhanka isgaarsiinta dhulka ah, iyadoo burbur xooggan la diiwaan geliyay. Saameynteedu intaasi kuma ekeen, waayo saameynta duufaantu waxay sidoo kale ka muuqatay dhalaalka muuqaalka markii waagu baryayay, oo adduunka oo dhan la yaab ku noqotay.